caawa waxaan idin hayaa qiso dhacday oo run ah oo maxaa la dhahaa ku dhacday laba gabdhood oo Soomaali ah oo isla dhashteen isku aabis hooy ah oo na degan Mombasa. qisadan aytood gabdhaha ila soo wadaagay gabar kamid ah ila soo wadaagtay magacooda ma ii sheegay laakiinse waxaan rabaa qisada inaan ila wadaago si cashar loogu barto mustaqbalka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qisadan way iga soo yaabisay waxay ku dhacday gabdhahan inta idin sheegay oo walaalaha ah isku haab isku hooy ah. maalin maalmaha kamid ah gabdhahan waxaa u yimi wiil ilma adeer koraad yihiin. wiilkii markuu u yimid way la qadeeyey maalintii meeshuu ku hergalay wuu la nastay maxaa la dhahaa cabaar markuu joogay oo reerkii uu la nastay kadib wuxuu yiri waxaan rabaa inaan reerkayga idin soo baro, waxaan rabaa xaaskaygii iyo gurigaygii inaan idin soo baro ureenen ii leedahay gabadhii. waayahay dheheen qadaa la cazumay. maalintii waqtiga markii la gaaray labadii gabdhood walaalihii way baxeen. wiilkii xaafaduu degnaa wuu u tilmaamay bay tageen. markay wiilkii tageen xaafadii qol uu soo dhaweeyey, qol uu soo geliyey. markay qolka fariisteen wuxuu yiri maxaa la dhahaa waxaa xaafadda fariista soo dhawaado yiri. marka xaafadda waxaa taalay tiri gabadhi hal kursi oo qof uun ku fariisan karo iyo sariir. marka kursigii walaashay ay fariistay tiri, anigana waxaan fariistay tiri sariirtii baa dhinac ka fariistay, wiilkiina dhinac kaloo sariirta ka fariistay tiri. xaaskii oo kitchen ku jirtay soo baxday, gurigii soo gashay. markay soo gashay waxay aragtay ninkii iyo hal gabar oo kursi sariirta isla fadhiyaan, gabadhii kalentadne kursi ku fadhisan meesha wada fadhiyaan gabdhihii. waxay samaysay marka wejigay badishay tiri qof oo waa yaabnay tiri qofka anaga waxaan umaleynaya tiri inay kitchen noogu jirto oo anaga qadana loo diyaarinayo. wejigay badishay tiri hebelow si kulul ku tiri orda bax maxaa dhahaa iga soo qabo dukaankaas koonaha ah, sheegaasaa iga dhimanay ii soo qabo. wiilkii wuu baxay. markuu baxay gurigay soo xiratay tiri. guriga markay soo xiratay tiri gabadhii waxay noola soo baxday mindi dheer ee noola soo baxday tiri. waxay samaysay tiri gabadhii meesha waxay ku bilowday tiri dagaal. waxay ku bilowday tiri inay mindidana la soo aado. waxay dhahday walaashayga kursi ku fadhisay kusoo booday tiri ka qabato ureeda waxbana kusoo bin karno. way kusoo booday tiri walaashay idana gabadhi markay soo booday ee mindida ila soo aaday tiri maadaama aniga aan kursi sariirta ku fadhiyay. way soo carartay tiri walaashay way iga qabatay tiri. markay iga qabatay laakiin mindida waa mindi weyn oo laba afle ah. afka hore lagama qaban karo, gabadha gacanteeda un bay qabatay tiri. mindida laakiin saas waay tiri way kusoo aday ugu soo aadanta. war meeshii waxay tiri waxaa lagu galay tiri lagdan lagu galay tiri gabadhina mara la dagaali karo qof ur le waaye tiri. marka waxaan sameynay tiri sidii aan mindidii ugu qaadi lahayn falkeedaan galnay dhahda gabadhi. wayna qaylinaysaa tiri. waxay leedahay tiri ninkan qaatiyaan ka taaganahay maalinba naagu isoo wada in adeertay wuu leeyahay in adeertaan beenta liiga dawada maxay tahay adiga balaayo dhanay sheegaysaa tiri. annaga waa naxnay tiri meeshaan intadna la keenay maanta baxaraaga ku jirtiin in adeer sheekada ma taagna nafteenaaba qaati ku jirtee maxaa samaysiin. adiga naagtii gurigana way nagu soo xiratay tiri dagaalka sida layskaga daba wareegaya tiri oo maxaa lahaa oo marba dhinac laysku jiidayo oo ilaahow nafaqso mindida amay igu dhacdaa ama ayada caloosha ka gashaa sidaan isku dhahaynay tiri oo rafaadkaas aan ku jirnay. ninkiyaa marka dambe yimi. markuu ninka yimidee tiri maxaad ku samaynaysa gabadha maxaa dhacay saan maxaa dhacay annagoona eedeeyay tiri. gabadhii ma ujeeda waxay qabanayso ninkii annagoo nagu soo jeesteedo eedaasoo noo soo gala inaan idin cazumo ilma adeer baa saa lagu yahay meeshan ii keenay maxaa xaaskayga masaakiinta uurkale saa u yeelaysaan maxaa iskugu goobansanaysaan. war waxaan dhahnay tiri caga dhigo xaaskaaga ayadaa mindidana la soo aadee meelaan isku hubilaana keentay annaga maxaa noo keentay meesha inaan nafteena ku weynaa meesha noo keentay. war naga qaba naagteena diline maxaa sheegaysiin war yeena dine. ayadana waxay leedahay maxaa saan igu samaynaysaa ninyaho kaasa ninyaho ka dheh maalin kastaba naaga ii keenaysaa maalin kastaba balaaya iga daba wadaa anigana waa kanaa meeshaana saan ahay. war waxay tiri si aan ugu fakano oo iskaga fujino alla aan weynay tiri. 4 qofood waxaa noqonay tiri hal idana buuqa ku jirtaa saasaa laisku wada dhagaya tiri. mindidaasaa laga baqaaya mala dhaqaaji karo. haddii qof ay dhaqaaqday tiri mindidaan ka baqaynaa gacanteedana waa laga fujin ah. marka dambe gacantuu ka qabtay tiri ninka gacantii ka maroojiyay mindidoo ka qaatay. naa carara oo yiri tiri naa carara. meeshii aan raashti ku sugayna tiri nafteena waxay gashaba qalqiil iyo carara. war waxay tiri koombadeeni kala xeelay wixii aan wadanin baa hor una soo dufnay tiri aan hore u soo cararnay. waxayna bursanaysay tiri naagta ayadoo dacs la'aan ah. waxayna bursanay tiri ilaa meesha baska laga raacay aan ka tagno guriga baska meeshiisa ka dheeraay tiri
ilaa meesha basaska laga raaco kenyaatiga intaan ka tagno wayna cirdaysanaysa iyadoo kaba haysanay tiri naagti iyadoo qaylinayso saasay noo bursanaysa tiri orodaan baska kusoo raacnay tiri waxaan nimida tiri gurigeeni war maxaa dhacay annaga is weydiinay tiri war waxa maxay ahayd inta waxay tiri aan baska saarneen xataa waxaan ka baqaynay tiri baska inay bas daba naga soo daba qaadatee meel alaali xaafadeeni meeshaan deganay inay soo aragto ee tan naga harweydo war waxaan orod ku imaanay tiri gurigii naxtin anagoo naxsan lehna maalin dambe albaabkan aska kama furayno meeluu leeyahay nama istaagi karno ma istaagayno mana rabnaba iyadii asigaba inaan maqalno sidaan u haynay tiri maalinta dambeentod anagoo gurigeena joogno oo sheekadiiba maskaxdeena ka bixinay casharkeena aan qaadanay oo afkeena aan xiranay kiyaa noo soo garaacay tiri guriga noo soo laabtay markuu soo garaacay maloo maleynayan inuu yahay tiri waa la furay albaabkii markuu soo galay waxaa la yidhi lugtaada banaanka dhig waxaan dhahnay tiri lugtaada ha naga soo gelin guriga lugtaada ha naga soo gelin iga raali ahaada xaaskayga maxaa la dhahaa uure leedahay saaneen ahayd xagga ka dhaxday adaqiil iyo qaalo uu sameeyey naagti waxaan dhahnay tiri haddaad muslim tahay naagtaadana naga reeb adigana naga har ammaan baraanna sii ilma adeernimane jaabka gasho nasiida wuxuu rabaa tiri inaan la ceebeenin oo familka loo sheegin wixii dhacay inaanu familka ogaanin warbiyaa tiri wuxuu noogu imaaday marka wuxuu noogu imaaday tiri inuu nagana baabaaseeyo xaal baana siinayaa intay ka dhacda waxaan dhahnay xaal lama rabne ammaanka ballaaran nasii dad masaakiin gurigaas deganaa nahay oo ilaahay ku sugaya meeshaas ammaan nasii casumaadna kaama rabno hana noo imaanin hanaga warhaynin kaama warhaynayno awalba shaqo iskuma lahayn faraxa naga qaata marka wiilka sidii ku kala tageen adiga xaafadii wiilkii way ka diideen inuu soo galo mar dambe saas isku daayeen go-aanna waxay ku gaareen inay mar dambe ninkaasitod ee noloshooda kusoo involve gareenin marka caawa meeshaan waxaan ka baranaynaa in aanan dadka guryahooda aan la tegin nin kasta iyo naag kasta isqabaan waxay ku nool yihiin problem ayaga u qaas ah maxaa la dhahaa tanna waxay tahay cashar meel laga qaato oo mar dambena oo layska ilaaliyo guryaha islaameed in adeer koraad walaa in adeer labaad walaa ilmaad saddexaad inaan guryahooda la tegin oo qof kastaba gurigiisa oo naftiisa ku arsurto oo gurigiisa degnaado waxaan isku ognahay inaan nafteena ka fikirno oo nafteena ilaashano aakhiradeena ilaashano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu